subax wanaagsan saaxiibayaal saakay waa subax barwaaqadiisa iyo bishaaradiisa wata waxaanan muuqaalkan idinkaga dabageynayaa dharbaaxa culus iyo xasuuq kooxda argagixisada ah ee ku sugan deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan loogu geystay xalay deegaankaas. Soo dhawaada muuqaalkaas si faafiya like-tana ugu dadaala. xalay saqdi dhexe duqeyn aad u culus ayaa waxay ka dhacday deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan halka oo kooxda khawaarijta ah nabar xaq darro ah loogu geystay ilaa iyo haddana meydadkooda ayay kala guri hayaan. xalay saqdi dhexe kooxda argagixisada ah saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Tardo isla markaana kulamo muhiim ah ay uga socdeen iyagoo islaha xiliyadan saqda dhexe wax idin arkaya ma jiraan, laakiin ciidanka hay'adda nabad sugidda qaranka oo iyagu xididda ku dhex leh argagixisada isla markaana xog walba taaka u helaya iyo kuwa cirka Soomaaliyeed oo adeegsanaya diyaaradaha indhahoodu habeen iyo maalin aysan waxba ka qarsoomin drone-ta ah ayaa iyagu sidaa ula socday, waxaana halgantaal oo culus lala beegsaday koox argagixisada ah oo saldhigaasi isugu soo ururay. firxadkoodii ayay u kala firxadeen dhowr gees. qaar waxay u firxadeen dhanka iyo banaanka kontaroolka magaalada Tardo halka qaar kale ay magaalada dhexdeeda u soo firxameen intii dhimatay mehe intii kale qayb firxadkooda ka mid ah oo soo aaday masaajidka Tardo isla markaana islaha halka ku dhuunta lama duqeyn doonee ayaa intaysan masaajidka gelin afaafkiisa hore ayay mar kale kula dhufatay. halka waxa ku xasuuqmay kooxdii islaha masaajidka u firxada, waxaana dhaawacyo ka soo gaareen dad shacab ah oo deganaa guri meeshaasi ku yaalo. hooyo iyo caruurteeda ayaa la sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen, kuwa oo dhaawacyadooda xilligan la sheegay in la gaarsiiyey magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. qayb kale oo u firxatay banaanka kontaroolka Tardo ayaa la sheegay iyagana in gantaal kale lagula beegsaday halka oo iyana waxba aysan ka fiigin. 3 gantaal ayaa guud ahaan lagu duqeeyay khawaarijtii ku sugnayd Tardo xilligana mid dhiga beelay oo jaqdo u cararay iyo wax dhintay iyo wax dhaawacmay ayay u qaybsameen guud ahaanba maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka Tardo oo qiyaastii gaarayay ilaa 40 meeyo 50 meeyo inta u dhaxaysa ay ahaayeen tiradooda. dad ku sugan xilligan Tardo oo aanan ka soo bixi karin guryaha balse iyagu daaqadaha iyo babaqyada kala socda dhaqdhaqaaqa argagixisada ayaa ii xaqiijiyay in ilaa xilligan 2 gaari oo nooha ah ay adeegsadeen oo ay ka baxeen magaalada iyagoo marna meydadkooda ku daabulaya marna dhaawacyo ku daabulaya iyagoo weli cabsiyo ku jirto in mar kale duqeyntii lala beegsado. wixii ka soo kordha maleeshiyaadka ku geeriyooda tiradooda kuwa ugu muhiimsan xogihii la soo ururiyo muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.